Number 1. youtube-ka asal in la bedelo wixii hore aan ku bartay arrimaha jacaylka inuu ka hadlo ayaad ugu barateen balse hadda waxaan idin sheegay in barnaamijyadii hore aan laga bedelay barnaamijyo badan oo xiise leh idin raaligeliya mar walba idin qanciya inaan dib idin soo cusbeenaysiino oo barnaamijyo noocaas kale aan soo dhigno maanta waxaan rabnaa in arrintaas ay idin ogeysiino qofkii maanta noogu cusub oo maanta ugu holeeya asal official subscribe saarto waxaa garbey fadhiga labo wiil ka mid bahda iyo asxaabta asal official ayagana fikradahooda iyo wixii idinku talagaleen iyo arrimaha waan barnaamijka soo kordhiyaan way ka hadlayaan haddaan ku hormarno ninkaan garabka iyo midig fadhiyo ay saaxiibayaal waxaan idin sheegayaa anigoo ah magacayga Axmed Maxamed Cumar iyo saaxiibkayga Xashka iyo saaxiibkayga marna dhulka aniga Yusuf iyo waxaan idin sheegayaa bahdii isku dubneed ee asal official waxaan idin sheegayaa haddii aad ku cajisto Saacidi Balbalaarka iyo haddii aad ku cajisto Xasan Toob iyo haddii aad ku cajisto fulaaniyada kale waxaad hadda inta ku arki doontaan Axmed Maxamed Cumar iyo saaxiibkayga qaaliga ah ee Xashka iyo saaxiibkayga qaaliga ah ee marna dhulka aniga Yusuf waxaan idin sheegayaa bahdii isku dubneed ee asal official waxaan idin soo gaarsiinaynaa waxyaabo dheeraad ah ee challenge-yo waxyaabo kale iyo waxyaabo kale aad ku sii arkayso ya haddii aad arki jirtay Saacidi Balbalaarka busteeda waxay ya had maanta inta waxaad ku arkaysaa Fartuun Balbalaarka Fartuun Balbalaarka bacdeeda dufeeda daarki wala yaabina gabar Saacidi la jecel yahay aniga Saacidi jacmuka ya marka waxa waaye Saacidi waa iga dhaxbacday waxaan isdaahay Saacidi saacadta waaye ya وسي جاب magaceeda afka ma tiiso qoday hadii Saacidi lagu dhaw oo daawanay videogan comment hoos noo qor waxa waaye lambarkaaga noo soo raacay fikradaada ayna ka soo dhiibo waxaan idin sheegayaa in hadiyada qaali ah aynu wax san yihiin meeshan aadna ku arki doontaan telephone numberdiina comment like iyo waxyaabo kale oo ku xiis galiya iyo Fartuun Balbalaarta iyo busteeda anaga suuqeeyo insha Allah Ilaahay maadana waxaan sii gudgal doonaa hada ma santa Axmed waxaan noo xiray ninka labaad ee garabkay bidix fadhiya waa sidoo ni sheegay Axmed iyo saaxiibkii Rashka barnaamijka hore aa u barateen YouTube-kan oo waxyaabo soo dhigi jirnay waxyaabo soo dhan haddaan waa la bedelay haddaan la bilaabo waxaa kala socodsiin riwaayado jaalanjiyaal ila qosol waxyaabo badan oo barnaamijyo cusub oo ni soo kordhin doono insha Allah maanta aan waxaa rabaa hal mid inaan idin dhaafo oo marka ugu horeysa idin qabahaabo oo barnaamij weysiiska idin qabahaabo magacyadana idin sheegaa ninkii oo tobanka ugu horeeya hadaa fahanti comment u qor markaas waa kusoo qabaha barnaamij asoo fadhiisay magacaaga waa soo fiiriyaa web iyo website ku qoran magacaan tobanka ugu horeysa daa xifdiso barnaamijyada soo socdo dhigahana u fur magacaaga uu soo qor meesha جاو حوش بشير على بلا شيخ نور بلق وفيرا فنينا قاعدة قرية أحمد دبري وصفيا مشرمك سعر شوريش فنشير أسدور بشمسير سمية حصل أسدور رمو بركاش وتاب سين قال أقولها تبون كوجو يا داب فانت ما أنا قلت هذا وحواي دي أسكت ده وحواي يا وحنا نسي يا حديد دب المستحيل وعلسين وحلاقيها وعينا سوف فهم دونها سوف فهم تدني يا ما عاجم مش نمبر كأنها كسور يبين وإذا سوينا إن شاء الله مركز أنا برنامج كذا ما هنا وكوسو قاعدين وعادينا عمل نكان والله خطر ويا نك أنت حفدي أو رش كدري نهل كريم ما واحد يشجع يا see you later you might remind me again sky of another time higla مر بدن واسل جوجنا حليه بدن برنامج جالنجي waxa arkaysiin hees waxa balan idin qaadana hees walba markaas soo baxdo anaga inaan ka soo hadalno sida youtuberada kale loo bartay oo kale inaan ka soo hadalno heestas khaladaadkeed aan muujino waxyaabo badan hadii la arko khaladaadkood inaan banaanka keeno si walba ay inaan dhaano heestan inta khaldan duubista fanaanka saan u shimeysan oo dhahay si fanaaniinta badan ay sameeyaan iyo dadka youtuberada jooga mar walba reaction hees walba ka soo bixiyaan anagana waxaan baran ku qaadana hees walba inaan reaction ka soo bixino wallahi horta bema adduunka ba sidaas iska maxaa yeelay qof aad wuxuu iska dhahayaa meedkii geed